jeediyay wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliya uga furmay dalka Djibouti waxaana hadaladoodii kamid ahaa dadweynaha caasimadda Hargeysa ku dhaqan waxaan u sheegaynaa waxaan u soo baxnaa si mug leh inagoo taageerayna go'aankii hal adayga lahaa ee madaxweynaha qarankan hogaaminaya Muuse Biixi Cabdi taageero xoog leh oo mug leh oo miisaan leh in mujinaba loo baahan yahay sida ay bulshadu dalbatay oo ah in taageero loo muujiyo mowqifkii madaxweynuhu ka jeediyay shirkii shalay ka dhacay magaalada Djibouti mowqifkaas oo ka turjumayay halka ay taagan yihiin bulshada Soomaaliland kii dal jooga ka dibad jooga mid yar iyo mid weynba waxa la doonayaa in bulshaduna muujiso taageerada ay soo codsadeen ayaa anaguna aan ku raacnay khudbadii qiimaha milgaha iyo sharafta lahayd xalay toole uu akhriyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo noqotay khudbad taabatay qulubta dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dal iyo dibadba waxa uu akhriyay khudbad cajiib oo garnaqsiya waxa uu mahadnaqay dhammaan qaranweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland intaanu arki karinay intaanu telefoon ku maqli karinayba waxa ka badan inta aanan arkin iyo inta aan la hadlin iyo inta aan la soo hadlin ee farxad aawadeed qof walba bartu joogay ku faraxsanaa waxaan leenahay mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Xildiid Rooble aad iyo aad baan mudane madaxweyne ugu wanaagsan tahay wax qabadkaad muujisay madaxweyne hadaad ictiraaf ka keentay alxamdulillah haddii aanad keenina la garay madaxweyne aad u go'aan adag oo dadkiisuna ku kalsoon yihiin aqlabiyad weyn lagu doortay in aad tahay go'aanka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel wacan dhigi kara hadaad maanta ictiraaf ka keeni weyday bari baad keenaysaa waxaan ku hambalyeynaa madaxweynaha guusha taariikhiga ah iyo khudbadda dhammaan shucuubta reer Soomaaliland qulubtooda taabatay ee uu ka jeediyay shirweynaha la isugu yimi iyo garnaqsigii uu la tagay golaha mudane madaxweyne shucuubta reer Soomaaliland oo dhammaantood mucaarad iyo muxaafadba waa kula dareen way kugu garab taagan yihiin ma halkan waxaanu taageero iyo bogaadin ugu qabanaynaa shirkii ka dhacay Djibouti iyo khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi khudbadaas oo shalay toole ahayd garnaqsi iyo go'aanka ay Soomaaliland taagan tahay uu madaxweynaha Soomaaliland shacabkiisa ku metelayay iyadoo ay horashka ku dhaceen lana doonayay inta ayahum shirkii la iska furo in la sameeyo in wada hadalkii uu socdaa waxaan ku taageersanahay annagoo ku hadlayna afka shacbiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka iyo khudbadda taariikhiga ah shacbiga Soomaaliland waxay naga soo codsanayeen inay soo iyo khaasatan